فيلسوفكي وهسيغا بدنا مقالة باريس غارهانا حافظة سانت جيرمان ديس هوتيلكا لوسلاين قولكا اللحداني سديداد أيو اللحداني سدح سنو أو حريرة دقنا laga soo bilaabo 1945 ilaa iyo 2008 Alberto Cosiri oo ahaa qoraal reer Masar ah oo Qaahiro ku dhashay sanadkii 1913 waxa lagu neenaasi jiray فيلسوفكي caajislowga ahaa wuxuu aaminsanaa in dadka wahsiga badan yihiin kuwa xigmado badan oo intay meelaha wahsiga la fadhiyaan nolosha ku raaxaystaan oo ay u fiirsadaan adduunyada halka kuwa nolosha iyo hantidaba eriya ay dhintaan iyaga oo noloshaba fahmin kuna raaxaysan cimrigoodii koobnaa waxa la sheegaa in maalintii oo idil uu hurdi jiray habeenkii oo dhanna saamaleyl ama soo jeed uu ku qaadan jiray keligii ayaa qolka ku noolaa magaaladana wuu mushaaxi jiray maqaayadaha ayuu iska fariisan jiray oo dadka ayuu tartiib u daawan jiray 7 riwaayadood iyo sheekooyin yaryar ayuu ku dhex qoray qolkaas waxa la sheegaa halka wahsi uu ka gaaray mar la gudoonsiin lahaa abaalmarin uu cududaartay maadaama waqtiga abaalmarinta la gudoonsiin lahaa ku beegnay 10 subaxnimo xilligaas oo isagu hurdo si aad ka heshay muuqaalkan like dheh sidoo kalena asxaabtaada u share garay ama copy link dheh